horseed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركز لي عشرانتي امتحانها هاي نوجا بحي دكسيده horseed مادة حسابته خاصة waxaynu eegaynaa maanta ay 6 tahay bisha shanaad 2020 waxaynu eegaynaa 10 fasalka shanaad oo xisaaba waliba fasalka shanaad xisaabtiisa way dhamaatay saas ku gabagabowday marka waxaynu eegaynaa 10 muraajaca oo inta badan ardayda ku yar adag oo la yiraahdo jajabka marka jajabka aynu eegno bal jajabka marka hore jajab caadi iyo jajab dhafan baynu qaybinaynaa jajabka dhafan ahayno dambeeyo laakiin jajabka caadiga aynu eegno marka isu geyntiisa number 1 isu geynta jajabka markaad ka shaqeynayso waxaad leedahay hab yar oo waxaynu ku shaqeynaynaa ka fudud hababkii hore oo markii hore dhufsaneeriyo xasal raadin jiray laakiin hab yar oo ka fudud baynu eegaynaa waxaan leenahay markaad ka shaqeynayso waxaan sameynayaa haday hooseyaashu isku mid yihiin mid baad ka soo qaadanaysaa hadii la isu geenayo la kala jarayo hooseyaashu markay isu geenta iyo marka kala goynta ayaa hooseyaashu inay isku mid yihiin iyo inay kala duwan yihiin la eega soo mar haday hooseyaashu isku mid yihiin mid baan ka soo qaadanaya afwan afar baan ku qoray laba aan ku qorayaa labada hooseeya way isku mid baan ka soo qaatay labada sarana isu geenaya wax weeyaan 7 saasay taasi kaga shaqeysan tahay iyadu markeeda hore way iska fududahay laakiin markay noqoto isu geen hooseyaashoodu kala duwan yihiin tirooyinka 5 iyo 4 shanta iyo 4 hooseyaashu way kala duwan yihiin markaan ka shaqeynay markaan waxaan leeyahay qaabka noocan labada hoose ayaan isku dhufanaya marka 5 iyo 4 markaan isku dhufto waa 20 haddana 4ta iyo waxaan isku dhufanayaa 3da waxay noqonaysaa 12 oo loo geeyay isu geynta ma soo qaadanaya 5ta iyo labadaas aan isku dhufanaya waxa weeyaan 10 labada saraan isu geenaya waxa weeyaan 22 loo qaybiyay 20 waan si fudeydinaya haddaan xagga 2 u qaybiyo waxay noqonaysaa 11 haddaan xaggan 2 u qaybiyana waxay noqonaysaa 10 soo saasan ku soo saaraya taas waa isu geynta marka kala goynta hadaynu eegno marka la kala goynayo jajabka isagana sidii oo kale aynu eegnaa hooseyaashu ma isku mid baa mise kala duwan yihiin haday isku mid yihiin labada hooseeye mid ka soo qaado labada sareeyana kala goo waa 7 laga jaray 4 7 laga jaray 2 baan u jeedaa 7 marka 2 ka jarto waxay noqonaysaa 5 halka hoosena maxaa ku yaala 4 taasina waa taa laakiin jajabka markay hooseyaashu kala duwan yihiin ee la kala goynayo waxaad oranaysaa nidaamkeena yar baan raacinaa labada hoose isku dhufo 3 iyo 4 isku dhufo waxa weeyaan 12 4ta iyo 5ta isku dhufo waxa weeyaan 20 oo laga jaray kala goyntuna waa halka taala 3da iyo labadaas aan isku dhufanaya waxa weeyaan 6 labadaas saraan kala jaray marka 20 hadda 6 ka jabto waxa weeyaan 4 iyo 10 halka hoosena waxa ku yaalay 12 haddaad si fududeyso xagga 2 u qaybi waxa weeyaan 7 xaggana 2 u qaybi waxa weeyaan 6 soo saasayaan ku soo saari isku dhufashada markay noqoto qaybta isku dhufashada markay noqoto waxaan leenahay iyada looma eegayo hooseyaashu miyay isku mid yihiin mise way kala duwan yihiin waxba looma eegayo marka labada sare waynu toos isugu dhufanaynaa waxaan labada sare hadaa isku dhufato waa 8 labada hoose hadaa isku dhufato 3 iyo 3na waxaan 9 soo saasayada kaga shaqeyn tan kale marka iyadana eegayso iyadana waa isku dhufashadii laakiin hooseyaashii way kala duwan yihiin waxba uma eegaysid marka jajabku markuu isku dhufashada la joogo hooseyaashu ma kala duwan yihiin mise waa isku mid marka labada sare in toos isugu dhufanaynaa 5 iyo 4 hadaa isku dhufato waxaan 20 labada hoosena toos baynu isugu dhufanaynaa 3 iyo 2 marka isku dhufato waxaan 6 hadaa xagga marka si aad u sii fududeyso 2 u qaybiso waxaan 10 xaggan hadaa 2 u qaybisana waxaan 3 soo saasaad kaga shaqeynaysaa jajabka marka laga shaqeynayo marka jajabkeena waa ka sida fiican uga shaqeysan 10 waa ka marka qaybta ku xigtay hadii la yiraahdo iyaga doona marka insha Allah 10 ku xigtay isugu iman doona waxaan leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. horseed